ميك هيستا سأقوى ميك مركز أورلاضي وش سأقوى السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتوا معنا وناكسن أصحابتا أن هودا كصاحبنايو ومركلة يو مقال عصوب المقال كان وكدومية هي مقالة هراء نقول برتين إن هل كان إني سوقلنا عاوة وحيني هنا مقال حساب بدن شيك حساب بدن أو نروح برتي أنا جيو صاحب كي رافين هذا بقى سؤال شميش كتير تاي واحد تاي وكما رافين intaan u gudagelin barnaamijkeena marka hore waxaan rabaa inaan inay faahfaahiyo sheekadan iyo waxa ay ku saabsan tahay Rafin waa nin jin ah kana tirsan jinka Soomaaliyeed soo asiga ay sheegay dabadayaal Rafin waxaan isku baranay iyo qaabka aan isku baranay ayaa rabnaa intaan u gudagelin barnaamijkiisa ama wareysiga intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan wax yar inaga sii faaloodo qaabka aan isku baranay Rafin waxa jirtay meel aan ka shaqeyn jiray oo garage ah inta badan shaqadooda waxay ku saabsaneed garage-kaas inaan ka shaqeeyo bedelaada oolyada iyo shaqooyin kale oo iska fudud garage-ka ka tirsanaa waxa garage-ka aan ka shaqeynayay markaas muddo 3 bilood ah kadib waxa la ii bedelay ama shiftigayga maalin bay ahayd waxa la iga dhigay habeen waxa jirtay meel kamid ah garage-ka oo laakiin albaab laga gali jiray baarti kala ah oo aan habeenkii aan la gali karin xaqiiqdii markii la ii bedelay booskaas waa ma shiftigayga laga dhigay habeen waxa dhacday in xataa la isii ogeysiyay oo la yiri ha tagin meeshan ama baartigan ha isku galin haday quraxda dhacdo haddaan dadka sii weydiiyay wax faala ah cad leegama siin laakiin hadalka waxa la igu soo koobay waxa degan qoom kale lamana galo haday quraxdu dhacdo anigu de Soomaalidu iska taqaanaan waa ku indha adeegay waxaana aan go'aansaday ama aan yaqiinsaday inaan barnaamijkaas kamera keeno anoo markaa aaminsan in waxyaalahan laga sheekeynayo iyo jin inuu jiro iyo waxyaalahaas aan u haysto mala abaal habeenada kamida ayaa waxaan anoo ku dhex jira baartigii aan ka shaqeynayay ayaa waxaan sameeyay shaqada aad ugu badneed waan yar daalay marka waxaan galay gaari kamid ah baabuurta meesha taalay waliba marka baartigii ilaahay ha tagina gaarigaas waxaan istiri iskaga yarnaso abar adigu marka gaariga ku jiray waa maxaan soo qabsaday telefoonkayga waxaan iska galay inaan asxaabtidii aan xogaa la sheekaysto iskuna dhaafiyo waqtiga muddo marka gaariga aan ku jiray ayaa waxa dhacday in gaarigii anoona meel kale aan taaban la istaaro waan fiirshay gaariga furaha ayaa ku taagan laakiin anigu ma istaarin gaariga hal mar baa la istaaray hadii markaad haysatid mataqaana xogaa baqdan kugu jirto waxyaalihii hore shakiyga meesha ka qabta ku soo baxaya laakiin still wali anigu ma aaminsanin gaariga markii la istaaray waan fiirshay waa damiyay haddana albaabkii la soo xiray markii albaabkii la soo xiray ayaa waxaan damcay inaan ka soo dago gaariga oo aan balgeesahay in ma arti meelaha qof ku jiray ereyada aan firfirsho kicitaanka aan soo kacay ama bixitaanka aan ka soo bixi rabay gaariga ayaa hal mar waxa la ii qabtay lugaha gaarigan cid kale igu ma jirin geesahan fiirshay waa aniga kaliya bad laakiin dareemaya culayska isaaran iyo in lugaha la igu dhagan yahay adigu meesha cabaar isku dhax buuqayo waan baqay waa ka soo dayay gaariga waxaan u imid teamkii aan la shaqeynayay yar kamida oo ajnabi cadaan oo ila shaqeynayay inta badan teamka la shaqeynayay cadaan bay u badnaayeen adigu nimankii taariikhda ugu dhacay barnaamijkii markaan ugu dhacay way ugu qosqosleen dan waxaan iska dhaadhiciyay waa wax macnaha sas soo qaaday waaye haddana waxaan ku laabtay habeenkii labaad aan ku laabtay meeshii anoo markaas laakiin sidii hore xogaa ka yar baqaya oo is ilaalinaya habeenkaas liguma daarin gaariga bad laakiin qaylo ayaan maqlay iyo buuq dadku dad ma aragtay sheekeysanayo oo kale luqado badan iyo afaf badan lagu sheekeynayo geesaha firfirshay meeshu wax dadan ma joogin galiga meesha ku jira baartigaasna hadii quraxda dhacdo cidna ma imaado laakiin anigu waxaan ku guda jiray inaan bal barnaamijkan hadii runtahay hadii been tahayba aan xaqiiqsado waxaan hadalkii inuu dheeraan marka meeshii aan habeenkii labaad ku laabtay
waxaan maqlay buuqaas iyo sawaxanka dad badan oo maaragtay sida dad sheekaysanaya oo kale waadigu geesahan firfish waxbaan waayay haddana gaarigii baan galay gudaha u galay inta badan baabuurta markii la soo baakoon baabuurta waxay ka dhex shaqeeyeen magaalada waa basas yar yar oo markaas loogu talagalay dadka nikaabka ah in lagu qaado marka habeenkii baa la soo xareeyaa basaska subaxina way baxaan adigu gaari kamid iska dhex fadhiistay buuq waa sii siyaaday waan ka baxay gaari kaloo gadaal safku ku jiro maan safka kale gadaashiisa yaa la imaaday oo markaas meeshaan isdhahay buuqa meeshaas ka yeeraysaa waa la hadlay marka gaariga kusoo dhawaada waa la hadlay cidnana uma jeedo adigu afaf badan buu qofkaas igula hadlay baan garan waayay dan markii dambe wuxuu igu yiri waraa maxaad doonaysaa ereygaas baqdinta horena igu jirtay laakiin ereygaas wuxuu iga jaray xogaa baqdintii i haysay geesahan firfirshay maskaxdeedana weli kuma soo dhicin xataa inaan acuudu billahi min shaytaani rajiim aan dhaho waxaan wajini waxyaalahan dhan maskaxdeeda walahi kuma soo dhicin laana baqdin ayaa igu jirtay Soomaaliya hortii ligula hadlay baa waxaan sameeyay geesahan firfirshay waxaan tirma qofka ku ciyaaraya gaarigan adigu barbaare waxaan arki waayay kadib su'aal kale la igu soo celiyay waxa jira waxba hana raadinin maxaa meesha ka soo doontay خلاص markaas waxaan yaqaansaday meeshan inay qoom kale ku nool yihiin laakiin xogaa geesinimaan muujiyay waxaan ku yiri waxba meesha kuma soo dooranaya ay ahayd adigu erigi jawaab la igama siin laakiin waa la kala tuuray sidii qof ma aragto qof caroodo oo kale la kala tuuray waan iska soo cararay meesha dhan ka soo baxay adigu 3 week 4 week oo kale baan anoo meesha alaab ka soo qaadanaya baartigaas kale ayaa waxa ay imaaday waxa adigu aadan dareemin laakiin buuq iyo hadal iyo dareemisid in qof ku kala tuurayo oo kale waa yar fadhiistay marka wuxuu igu yiri qofka marka ay imaanay ma arkeen adigu habaqin horta marka hore fadhiiso waan fadhiistay cabaraan adigu wada sheekeysanayo kadib wuxuu ii sheegay in uu meeshan ay ku nool yihiin jin muddo badan ay deganaayeen habeenkii aan loo soo galin jinku maalinta ma shaqaysto laakiin habeenkii meesha ku shaqaysan jireen wuxuu marka hadalka ugu daray wuxuu yiri adigu nasiib ayaa leedahay sababtoo ah dadka qaarkood hadii xataa dad baa meesha noo jiifay maada arkeen inta badan ana dadka kale leexinay sababtoo aan midabka ka hortaan arkay waan yaqaansaday inaad ahayd qof Soomaaliya anigu waxaan ahay origin Soomaaliya halkaas ay marka rafiin aan isku baranay sheekadana ka bilaabatay wuxuu ii sheegay rafiin in ay jiraan jin badan oo Soomaaliyeed inkastoo aniga xataa aan marka hore yaqaansan aaminsaneen ilaa ay muddo 4 bilood ka bacdi ka soo wareegto ma aaminsaneen inuu xataa qofka ila hadlay uu jin yahay waxaan damcay inaan dadka la sheer gareeyo ama aan barnaamijkan u sheego asaa iga sii digay oo xataa uu yiri markaas ka soo dhaxgalna xogaa aan sheekaysanay wuxuu igu yiri barnaamijkan waan ogahay inaad wali fajac iyo wareer kugu jiro laakiin waxaan kaaga digayaa inaad dadkan aan u sheegin anigu sheegitaankaas waxba nagama dhimayso laakiin adiga waxa lagu aqoonsanayaa inaad tahay qof cilaaj ama qof waalan oo kale waxa laga yaabaa in reerahaagu ama dadkaaga quraan sar ku diraan in asxaabtada ku arkaan nin waalan in adigu confuse si qaadid oo shaqadaada ka cararid aad ma aragtay xogaa aad shoogtid laakiin istaji waxa kuma yeeleno anigu waxaan qoom kamida noolayaasha rabbi abuurtay dadkana soo daansada ma dadkana ma daansano kiin naga nabad helno aniguna waa uu naga amaan helaya kiin nabad galiya aniguna naga amaan helaya adigu rafiin sheekada kala dhaxmartay inta kuma soo koobi karo waxaan kala dhaxmartay adigu sheeka dheer muddo 4 bilood ayaan wada sheekaysanay ee igu qaadatay inaan aamino rafiin inuu yahay jin markaas kamid ah ama inuu jiro wajin ama meesha qoom kale ay la degan yihiin adigu 4 bilood ka bacdi waxaan go'aansaday in aan bal sheekadan aan u soo bandhigo taageeraha Rusheeg Media ee Soomaaliyeed oo dhan wax badan ayaan isku dayay oo xogaa asigu ka cudur daartay ultimo ilaa iga ogolaado caawa waxaan rabaa inaan bal sheekadan adinkana aad wax badan igala ogaataan mar raba taariikhdiisa gaarka in aniga asoo fadhiya inaan inii galo waayo anigu waxaan soo dhahnay taariikhdiisa way iga sheekeeyay marka waxaan rabaa afkiisa inaan ka qirno caawa oo aan ku soo dhaweeyo inuu balcin jiro in sheekadan ay sax tahay in markaas iyo waxyaalahan kala dhaxmaray marka waxaan rabaa inaan marka hore ku soo dhaweeyo rafiin marka hore ku soo dhawow Rusheeg Media waan ku mahadsantahay sida quruxda badan leh oo aad ma aragtay noo qaabishay inaad Rusheeg Media iyo asxaabta team Rusheeg aad hor imaadid
ولو أدمركي هوري آمين وبيسي هذا ذاتك أسي شاكتين وحدي نجح معي من اللي يقولي كم حيث هاي مالتي كوبكا بيها قريقة وباي كل دقيقين ومركب بيجي ماشي لقيت علي وصاري نحلتي عن حلي إنك الصورة تفي عن سماسي ولا نيجي أستطيع سي أدفع الوقت كده أنت روحان واسكان عسى باي كده عسى وما سنتهي أنا وقف أحسن عنا مثلا عن هوش عن كل كيسو سي عندي عند كل الأزهار كنت هتعرف كده مثلا أقف وأنا الوقت مركا وكل واحد واتهاي حقيقة يوضع شكلها سوي جرتي لكن إن كستا عن قاطع ثلاثة هذا أتري نتيجة شكلها أنكم كقول عودتكم آمنيا حتى ما أنت تنا أبي أقول شكلها يسن آمن لهن حتى ندي وبلان أيام كوجلنا أنا ما عرفت ما دام كل صاحبي أنا كو أركنا قف أنا كنت هاي واتها أنت هذاك كيوجد رفين صاحب برضو حتى هنين سكدا إنس كينكي kini insiba ay ku tadashan mudan yihiin ama aanin aad dadka u soo dhaweeyay aad tahay oo fasaxanahay in aan ku weydiiyo su'aal kasta oo ma aragtay aynu ogahay barnaamijka asaad ugu sheegtay waxyaalaha aad diidan tahay laakiin waxaan rabaa shacabkayga inaan qanciyo ma oo fasaxanahay inaan kula kafta macaaba oo su'aal walba aan ku weydiiyo mise uma fasaxani ha saaxiib aniga adiga mudan soo wada hadlaynay waan isfahnay inkastoo aan jeclahay in mataqaanaa haddii akhbaarta ay dhamaato أنا سفي عن أنا هذا وكل قيد ولا ما هي مثلا الناس يقولون لكن إيش يجين حلو بدل موضوع يعني كلام صارت أنا هذا هو بقايا سيا لو كذا مثلا قف مثلا حمص أو جنود أو والان أو مثلا سيقول هن إنسب ما كا أنا هذا ورثي أنا ولا ما هو أنا هذا الشيء سبعين بدل بكوسون أو بدل بكوسون غضون وأنا قف صحت هاي إلى المدرسة بس هاي وفقان واحد جلس سؤاله عن حبانين إلى كجوابه هدي يجعله وأتكلم جهده أنا أعوذ كذا مثلا دمشق لمدة مقارنة سنة كوسون نقطة عندنا عن واسيك سوا بس كده يعني بتقع أنت كل جو أساس ودي يا واتهاي صاحب وأنا كم أصلاً تهاي دقنين تأديسي نان هراء وجوز صعنو برنامج كنا طبعاً وحتى هاي ساد الشكتين نجنة كانوا سوتشي ذا جينكو كأبتصد صوماليا وحرمنا وحير عن ضد مرلبات عن أطار تابنو رفين ونجنة أفصومالي قاعد يقولها بالحساب بالقاب عين كيا مركر كبرتي أفصومالي وسؤال في عن دان كاجي جواب سؤال مجاعي وشرفين إنه هقول وحن جينا لواتني صوت صار وحن كان جالس يعني تواصل كهر ولي قول جين مجال نقول سن بس سنة يبدو بي وحنها لبناء جعير دان كثير كويس كيانا أبهي وحول على تطبقون وعروبة صدق كل وكملة اسكو هويا يعني لما كنا اسكو هويا هي أبا يعني هكي مرة هويا دي جينك واحد دشاء صدم سديتم أما صدم مرة بس يكرهين بعض هويا سديتم بدشاء كويس كي نحكي لها كويس اسمه موت هذا بدن وحنا هاي سن مثلا سومالي كلها الله كل واقف على لندن سان كل هالكان وحنا هاي جين سوماليات وحنا كيمت مجالة برية كارلو جوال كركار واتهاي صاحب رفين طبعا ترى نوش شكتي أنت كل ده التكريم مركي لوفير شو الصوماليدو دانكنوا قبائل ترى نوش شكتي كل جا عرورت نير ده التكريم مركي دانك إنسان أنفير إنه طبعا وقبائل بالله كرام طبعا ما دام أتري وحن كلمة دول صوماليات وحن مد أكسون هاي صوماليدو إني كتير سنتين نلوش شو قبائل قبيل سكوت حجان شين كرتم ملي هاي قبائله مثلا سيد إنسجا أو كلام مسكوكلا سارتان قبائل ها وجنكو جودهان ولا بق قوميدون ولا كذا هو المجن إيوه بحر إبليس كده واحد يوصل كربحان لبعض قبيل وحنا كذا من الناس أجزاء من حوالي ناس قولوا إبريق قرآن قرب نائسيا ناسية مريض بليس شيطان سلك يكون كوابلان أنا وحنا كذا شيء قبيل كا ناس oo ah jinni muslima waxaan dhaqanahan ugu dhownahay insiga wali kuwa aan dadeganahay oo Soomaalida waa tahay dabcan rafin san waraasiga hore aad ugu soo dhawaajisay waxaad tiri waxaan ahay dhibana waxaan muddo ku soo jiray dhibana macnaha jacayl sanadaha ugu dambeeyay ku soo qaatay bal jacaylkaas ma waxaad u qaatay qof insiya mise jin baad jacaylkaas aad dhibana jacayl oo ahayd ha dabti halkaan ku soo koobi karo aniga adiga waa haynaa waa isha kina la wadaago dadka Soomaaliya ku hadla kasalan aniga kala qabsatay laakiin uu kulli baa la socota laakiin inta hadda la wadaagi karo waxa waaye anigu waa dhibana jacayl ayaan ahay jacaylkaana waxaan ku qaaday qof mis ah gabar oo Soomaali ah oo gobolada reer bari ka soo jeeda waana kii ugu xanuunka badnaa ee soo mara sababtoo ah insi iyo jin
waa adag tahay siday mataqaanaa jacayl u dhex maro gabadh Soomaaliyeed oo hadda ku nool dalka Canada qaasatan Toronto. Okay. dabcan waxaan dhihi karnaa waxaad anoo markaa matalaya Soomaalida waxaan dhihi karnaa waxaad tahay seediga markii laga soo tago saaxiibtinimadeena maadaama ay gabar Asia soo jeclaatay waxaan rabaa inaan mar labad aan ku weydiiyo dhanka jacayl dib baan isaga imaan doonaa iyo taariikhda ah ka soo martay heerka isla gaarteen dabadayaal xaqiiqdii hadda waxaan rabnaa inaan nii cadeeno inaan Rafiin caaw uu marti yahay أنا كدل البضي إن متقنا حوجا بال مدام هذا سومالي بدن أي إسديهايان برامج كان وبرامج متقنا وحبك كتيرين وحرب أنا عدين إن هور كأنه صوبته أنا كدل البضي رفين إنه بالحوجا دغدغاق وينتصو marka dhaqdhaqaaqas hatta koobka uu qaadayo iyo xogaa dhaqdhaqaaq uu sameeyay inaan bal aad ila aragtaan hay Rafiin ku mahadsantahay aad arwana u mahad celiyo Rafiin maadaama uu naga ogolaaday codsigeena Rafiin waxaan rabaa inaan wax yar aan bal bulshada aan ma aragtay si fiican ugu sii yaqiinsano waxaan rabaa mikrofoonka ina gacmaha ku qabsatid adoo haysta meega ina gacmaha ku qabsatid وارتن داود يا أنا ميك وما هي رفينا سميك هستا سأقوى ميك مركز أولادي وش سأقوى